hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo salaam asxaabta kusoo dhawaada muuqaal kale oo aan maantana ku baran doono mowduucii aad wada sugayseen ee SPSS. waxaa la yaab noqotay waxaan soo dhignay su'aal poll facebooka oo aan ardayda leenahay ma jeceshahay inaan bilaawno cashada SPSS. muddo ka yar 24 sac waxaan ku helnay jawaab ku dhow 1000 qofood oo boqolkiiba 90 dhahayaan waan rabnaa in la bilaabo SPSS-ka. maanta cashirka meeshaan ka bilaawi doonaa waa safar qurux badan wax badanaa ka dheefi doontaan laakiin u baahan commitment iyo waqtina gelisaan. qofkii intaas gelin karo waa safar aan isdhahay wax badan aan ku dheefi doonno. aan idin sheego koorsadu waxaan samayn doonaa SPSS waxaan u jilcin doonaa sida ugu fudud aan isdhahayo waa u jilcin kartaa. koorsada waxaan ka bilaabi doonaa scratch waxaan geey doonaa ilaa heer advanced ah. muuqaalkana waa muuqaalkii ugu horeeyay muuqaalada soo socda waxa SPSS ku saabsan. maanta muuqaalkan wuxuu bilow u yahay muuqaalada soo socda. muuqaalkan waxaa markaan kaga hadli doonaa 3 shay. kow waxaa rabnaa haddii aad koorsada dhammaysatid oo aad la socotid maxaa ka baran kartaa. number 2 waxaan kaloo maanta muuqaalkan ku sheegi doonaa requirements maxaa lagaaga baahan yahay haddii aad rabto inaad la socoto koorsadan ama tutorialskan. qodob saddexaadna waxaan bilaawi doonaa waxaa gugundhig u ah intaadan SPSS bilaabin oo ah inaad tahay qof ku fiican conceptualizationka modelka inaad fahanto. SPSS intaadan dhisin oodan code gareynin oodan analysis iyo data entry waxaas galin you have to understand how to conceptualize your variables. marka maanta mawduucaasna waa ka hadli doonaa. marka qaybta koowaad maxaa ku baranaya tutorialskan haddaan la socotid oo dhammaysatid. number 1 waxaa rabnaa horta it's all about SPSS. SPSS waxa waaye sida numerical data loo analyze kareeyo. marka waxaa rabnaa haddii aad tutorialskan ila bilowdo ilana dhammaysato inay ku sahlanaato inaad analysis ku samayn karto number wax ku saabsan adigoo markaas fahankaada iyo waxaadan kor u kici doono. qodobka labaadna waxaa rabnaa in articles dhan hadda kadib markaa aqrinayso haddii tutorialskan aad qaadato waxaad fahmi doontaa qaabka resultiga ay u qoran yihiin waxay salka ku hayaan iyo sida loo soo saaray. marka normally SPSS tutorials waa lees baraa noocyadan waa arkay waa all the time meel kasta available ka yihiin laakiin si aan koorsadan ama tutorialkan unique ugu dhigno oo ardaydana aan xiiso ugu yeelno hal qodob ku dara oo dheeri ah. qodobkaas waxa waaye qodobkan data analysis markaad samaysid oo resultkii kuu soo baxo meeshaas inta badan la iskaga haraa laakiin anaga meeshaas kuma harayn. waxaa idin tusaa markaad numberka analysis samayso oo analysiska kuu soo baxo analysiskaas sidee uu qoray ABA format macna calashaan result analyze garaysa natiijaha heshay natiijadii sayeele natiijadu waa inaad soo qaadaa word keentaa qortaa sooma mar qoristaas ayaan tusaa result kasto haddaan reliability sameyno descriptive correlation ANOVA everything waxaan tusaas markii result heshid sidee la soo qaadaa word loo keenaa datana loo qoraa ABA format. marka qaybtaas aan isdhahaa waa qaybta koorsadan ka dhigi doonto unique. marka intaas waa waxa aad ku baran doonto haddii aad koorsadan la qaadato. maxaa loo baahan yahay koorsadan waxaan ka bilaabi doonaa scratch. sidaas darteed muhiim maaha inaad fahansan tahay SPSS ama statistics. everything oo la kulano waa sharxi doonaa sida ugu fudud ee qofka bilowga ah uu u fahmi karo. koorsadan targetkeedu waa dadka ku cusub SPSS statisticsna aan si fiican u fahansanin. haddii aad very advanced tahay waa iska mootin kartaa oo videoda soo socda daawan kartaa laakiin normally targetkan waxa waa ardayda ku cusub SPSS analysiska ama kuwa doonaya strong foundation inay yeeshaan. qodobka labaad requirementska waxa waaye waa inaad haysataa SPSS software oo computerka kugu jira. haddiisan uu kugu jirin hal muuqaalaan duubnay sidee software loo raadiyaa waa raadi kartaa. haddaadan ka siin raadi videogaas ee daawo. marka intaas waa the requirements of this tutorial laakiin there are prerequisites waxaa idinka doonaya jiro haddaa koorsada aragti inaad macin ay ku samayso faa'iidada ugu badanna aad ka hesho annaga juhdigayga uu noqdo wax meel fiican ku baxay. 2 shay muhiim ah. number 1 you have to have a law for data analysis. waxaa rabaa inaad tahay qof jecel inuu data analyze gareeyo. haddii aadan jecleen waxaan xiiso un bay kaa noqon doonaan laakiin wax miro dhal ah oo mustaqbalku anfici doona haddaa rabti inay ku noqdaan
qof data analysis jecel inaad tahay muhiim ah number 1 waa inaa haddaba ku haysaa motivation qof raba inuu research wanaagsan sameeyo qof raba inuu articles qoro qof raba inuu magaciisa journal geeyo haddaad tahay waa muhiim waa ila socon kartaa labadan shay haddii aad leedahay thank you so much join me in this great journey marka intaan bilaabay ka hor materialskaan isticmaalaya maxaa waaye oon idinkana idin recommend garanayo waxaan isticmaalayaa laba book oo ay qoreen Julie Belland iyo Umu Sekaran labadaas book waa buuggan horta lahay Julia Belland waa buugta mid ma dhihi karo midka ugu fiican laakiin waa mid ka mid ah buugta ugu fiican SPSS markay tahay qof kasta oo weydiisay SPSS-na book ku saabsan si kana ugu muhiimsan buuggan wuxuu ka bilaabaa from 0 inaad tahay wuxuuna ku geenaa ilaa advanced level buugga labaadna waxaa lahaa Umu Sekaran buuggaas ay qorto waa buug aad u wanaagsan buuggan buug hore uu ka duwan yahay kii hore wuxuu ahaa SPSS analysis oo la sameeyaa kan laakiin waa research la sameeyaa adigoo ka bilaabaysid bilow topic ilaa iyo dhamaadka ugu dambeeya oo ah resultigaada see dadka managerska loogu present gareeya marka buuggan Umu Sekaran chapterka idin tilmaama waxa waa chapterka 12 I think yes chapterka 12 let me check chapterka 12 ee buuggan soo degso yes chapterka 12 waa so yes it's chapter 12 oo ujeedaa soma chapterka marka soo degso labadan book marka hadda u baahan tahay comment noo reeb hoos emailkaada waa u soo diraa waxaan ballan qaadaa qof kasta oo codsado emailkiisa ku reeb commentiga hoose waan soo dirayaa ballan marka intaas waa resource aan isticmaalayn marka hadda waxaan galaynaa qodobkan weeri oo ah intaadan SPSS bilaawin waxaa muhiim ah inaad fahansan tahay the conceptualkan waxaan ka wadaa waxaan rabnaa inaan isla fahanno maxaa lahaa independent variable maxaa lahaa dependent variable maxaa lahaa controlling variables moderating variables mediating variables kuwaasaan sharxaynaa marka basicgaas isla fahanno SPSS-ka micnoo kuu samayn doona sababtoo ah fiiriya markaad dooranayno correlation ama regression ama ANOVA chi-square waxaas tooliskaas maxaa salka ku hayaan waxay salka ku hayaan variable-ka aad analyze garaynaysa iyo xiriirka aad raadinaysa marka si aad u fahanto xiriirkaas waxaa muhiim ah inaad isla fahansannahay waxaan IV DV control model marka kuwaasaan sharxaynaa okay aan bilaabna marka ka soo qaad tusaale ahaan maxaa lahaa independent variable waxaa lahaa waxa madax bannaan ee saameynaya shay kale waxaa loo yaqaanaa independent variable dependent variable waxaa lahaa shayga ay saameyntaas ku dhacayso tusaale ahaan ardaydu imtixaankooda natiijada ay keenayaan maxaa saameyn ku leh cilmi baaris ayaa sameyn rabtaa okay saameynta marka ardayda performancegooda waxa waaye markaas wixii lagu dhacayo maho because ardayga resultigiisa maxaa saameynaya arabta inay baartid marka resultiga ardayga waa natiijada dhalanaysa natiijada always waxaa lahaa dependent variable independent variable waxaa lahaa shayga markaas natiijada keena u fahan halaasaan kala qaadno natiijada dhalanaysa waxaa loo yaqaanaa dependent variable waxa natiijadan keenayna waxaa loo yaqaanaa independent variable hadda tusaale ahaan haddaa dhahno hard work saameyn ma ku leeyahay performancega ardayda waxaan ka wadnaa ardaydu hadday dadaalaan saameyn ma ku leeyahay performancegooda waxa ay keenayaan haddaa marka meeshaan fiirisid yaa ah dependent yaana ah independent natiijada yaa ah yaana waxa natiijada keenaya natiijada waxa waa performancega waa therefore this is dependent waa yaa ah waxa natiijada keenaya hard work waa therefore hard work wuxuu sababayaa performance this one is independent variable and this one is the dependent variable taas waa mid marka variables marka aad baaraysid waxaa muhiim ah variableskan waa conceptual waa abstract waa ma la fahmi karo maxaa ka wadaa waa inaa micno sii samaysaa mugta marka kuwaas hadhow si fahmi doontaa laakiin hadda waxaa iska ogaataa hardwork maxaa ku cabire oo operationalization maxaa ku ah waxaa noo ah tusaalaan hardwork waxaan ka wadnaa the number of hours studied arday kasta waqtiga uu barto aan hardwork ku cabiri doonaa performancegan maxaan ku cabiraynaa waxaan dhahaynaa tusaalahaan ka soo qaad
grade ka ardaygan u keeno aan performance isku cabirina haas misla fahnay marka independent variable hadaa maqashid waa shayga wax sababaa inay dhacaan dependent variable waa natiijada dhalanaysa tusaale ahaan dowladda Soomaaliya haddii lagu dhaho corruptionka waddanka Soomaaliya ka jira wax hartan cilmi baaris ka sameeyay marka corruptionka maxaa sababa hartan corruptionka markaas dependent miya bis independent haye maxaa waa dependent so because corruptionka maxaa sababo asiga resultiga waa like wixii sababa raadinay shayga sabab oo madax banaan yahay waa independent and this one is the dependent variable normal workers marka hadda waa isla fahanay waxa loo yaqaano independent iyo dependent waxaan galaynaa moderator maxaa la dhahaa hadda u fiirsatid marka ardaydu ha dadaalaan performance-goodan ha imaado laakiin ardaydu way kala duwan yihiin tusaale ahaan age-kooda tusaaleya way ku kala duwan yihiin socio economic status-kana way ku kala duwan yihiin ardaydu qaar qoysaska dan yaray kasoo jeedaan therefore materials iyo facilities ma haystaan u fiirsa ardayda qaarna reer iska dhaqan ay kasoo jeedaan therefore environment saacid ay waxbarashada ahaayeen marka ardaydan marka u fiirsiya ayagoo dadaalaya oo ka wada siman tusaale ahaan 10 sac ama 5 sac ay bartaan wax isbuuc kasta laakiin saas way tahay labadan factor ay ku kala duwan yihiin marka labadan factor waxay saameynayaan hadhow xiriirkan mila socdaa okay lamiya meeshan wax dhigo si aad si fiican iskula socon okay inta this is the age kan wuxuu saameynaa xiriirka labadan shay haday taan sheegay age marka qofkan inuu weyn yahay marar waxa iska dhici karto iyo qof yar haday wax wada bartaan sida normal sida caadiga qofka kulama uu ka daaweyn yahay kulama uu la rabo inuu ka fahmo ogyahay waa jirta dad weyn oo iska physical iska laakiin sida caadiga ka leena general hadaa weynta waxa laga rabaa inaad tahay qof aqli loo marka ardaydu haday kala daaweyn yihiin haday hataa waqti isku mid wax bartaan performance isku mid ma da'da ilaa saameynaysa therefore da'da is a moderator wuxuu moderator ku yahay xiriirkan 1 ma hayna halaas waa isla fahanay waxaa kaloo jiro socio economic status-ka arday gurigiisa environment wax walba u toosan yahay nal wax walba haysto oo wax meel wax ku barta haysto ee arday cid dan yar ka soo jeedo oo waxyaabahaas aan haysan buugaag dheer loo gadaynin guri home teaching loogu sameynaynin socio economic status-kaas soo ma saameynaa hadhow marka xiriirkan this one asina sidoo kale waxaan dhahaynaa is another factor moderator oo saameynaya xiriirka ka dhaxeeya hard work iyo performance halaas misla faanaad moderator maxaa la moderator waa variable kasta oo saameynaya xiriir ka dhaxeeya laba variable kale independent iyo dependent xiriirkoodu nooc uu noqonayo waxaa saameyn moderator u noqon karo factors marka moderator maxaa la asina waa noocaas waa ina isla fahanaa rajeynaa waxaa aadaynaa marka tusaale ahaan factor kale kasoo qaad intelligence maxaa waaye intelligence waa factor madax banaan oo toos u saameynaya performance marka haddaa fiiris intelligence-ga maxaan dhahaynaa moderator miya mise waa factor kaloo asina independent ahoo toos u saameynaya performance haye inaa ka jawaabtidaa lagaa rabaa 1 2 3 4 5 jawaabta ma haysaa maxaa waaye waxaan dhahaynaa this one ma ahan moderator waa factor toos u saameynayo performance-ga xalaas misla fahan marka arrimaha ugu muhiimsan waa kuwaas hadda waxaan baranay marka wax loo yaqaanaa independent variable waxaan kaloo baranay wax loo yaqaanaa dependent variable waxaan kaloo baranay moderator waxaan hadda aadaynaa waxa loo yaqaanaa mediator mise control aadayna okay controlka asina maxaa la dhahaa tusaale ahaan sida hadda adigoo isticmaalaysid sida hadda kii hadda camal kale waxaa rabtaa saameynta uu ku leeyahay waxaa tiri stress maxaa sababo stresska ma independent mise waa dependent sabab because natiijadii waa stresska natiijada dhalanaysa waa wixii keenaya natiijadan araadinona therefore independentiga naga maqan dependentiga haysana stress maxaa sababo marka literature-ka akhrisay oo aad raadisay waxaa kuu soo baxay labadan shay articles akhrisay waxyaabahan ay sheegeen waxay dhaheen stress waxaa sababo smoking sigaar cabista wuu sababaa sidoo kale daily hustle-kan wuu sababaa normally
waa example just wax jira inay yihiin iyo I don't know just example qofka maalintii waxyaabaha noloshiisa iyo noocee tahay iyo wuxuu la kulmay iyo waxay sababi karaan stress smoking hadduu sameyn way sababi karaan adiga waxaa go'aansata marka waxaad tidhi waa maxay saameynta smoking uu ku leeyahay stress iyadoo aan ka soo qaadayo dhammaan daily hasalka dadku inay isku mid yihiin si fiican ila soc meeshaas yaa waxaan dhahaa halana but let me put something here waxaan leeyahay this one I control it waxaan leeyahay marka gadaaliigay yes daily hasalkan waa iska celinaa waxaan leeyahay smokingka saameynta uu ku leeyahay maxaa waaye stresska waa sida data isticmaalaha this one is independent and this one is dependent saameynta uu ku leeyahay maxaa waaye sidoo kale kanna wuu jiri lahaa xiriirkan iyo midkan laakiin aniga waxaan dhahay this one I control waxaan kasoo qaadaa qof kasta waa dadka cilmi baaristan ka qayb qaadanaya dhammaantooda daily hasalkooda waa isku mid therefore I control this variable control waxaa la marka fal factor inaad dadku dhan isku mid yihiin kasoo qaado waxa kale aa u fiiriso marka smoking iyo kan bisaan baaraan laakiin this one I'm controlling kaasa waxaa loo yaqaanaa marka control saasa la qodobkan ugu dambeeya maxaa lahaa waa mediation waxaa lahaa tusaale ahaan fiiriya haddii labada factor tusaalehaan ka naga titir waxaan dhahaa marka intii gey kana factorkan iyo factorkan intaysan xiriir toos intaysan yeelan ma jiraa wax dhexdooda dhici karo mediator haddaan kasho wax waaye xiriirkan tooska ah ma aha wax jiraayo xiriirkan dhexdooda wax baa dhici doona mediator waxaa factor dhexdhexaadin doono xiriirka laba shay ka dhexeeya marka waxaan dhahaynaa kan waa hal option intaken therefore waxaan leeyahay smoking haddaa smoking sameeyo wuxuu sababi doonaa just kasoo qaad waxa loo yaqaano wuxuu sababi doonaa tusaale ahaan headache madax xanuun tusaale haddaan sigaar cabo wuxuu sababi doonaa headache okay haddoo madaxa xanuuno waxay ugu dhici doon stress خلاص ما هذا wax oo jira ma literature ma akhrinaya waa iska sameeyay just example kan inta soo hadii smoking uu dhaco wuxuu sababi doonaa headache hadduu imaadana waxa dhici doono stress xiriirka noocaas ah marka kan waa independent way this one is dependent like kama xawa this one is mediator waxa laga wadana waxa waay shay inuu asiga dhacay qasab tahay intuusan midka kala dhicin smokingka haddii toosan baarayna laakiin hadda waxaan dhaynaa smokingka kan toos uma sababayo smokingku wuxuu sababaa headache-guna waayo wax sababaya stresska marka waa intaas waxaad ugu muhiimsan marka conceptskan videogan si fiican tartiib u daawo ee ku noqso si aad u fahanto waxyaabahan waxaan idinkaga tagaa marka hal assignmentyaas marka haddaa fahantay haddii kale waxaa kusoo qortaa qaybta hoose commentiga si aan u ogaado inaad videoga fahantay in kale aniga cilmi baarista aan sameeyey concept modelkayga idin tusaa waxaan baarayay consumer trust dadku waxay ka aaminsan yihiin caadiyan waxaan baarayaa Soomaaliya e-commerce ka jiro dadku si ka aaminsan yihiin aan rabaa inaan baaro okay waxaan dhahaa marka consumer trust aaminaadii dadku aaminsan yihiin iyo lacagaha qaabkay u bixin karaan markay wax gadanayaan aawadood labada shay aawadood waxay sababayaan dadku inay ka warqabaan e-commerce waxa loo yaqaano kadibna ay fikir ka samaystaan labadan markay dhacaan waxay sababi karaan dadku inay internet wax ka gataan Soomaalida halaas miila fahantay hadda marka su'aasha aan idin diraayo oo aan videogan ku qatimayo idinkan aan rabo inaad comment soo bixisaan waxa waaye labadan shay maxaa waaye independent miya dependent miya moderator miya control miya waxay yihiin laga yaraa marka hadda ninka dadka soo jawaabo waa u soo reply garay doonaa marka videoga inoo idin caawiya rajana waana mahadsantihiin haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkan muuqaal ka daawato waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan waxaad riixi kartaa sumad u eg gambaleelka ee ku taala dhanka midig ee subscribe mahadsanid